بارك الله فيك شيخنا إلهي ميزانك حسناتك كوسا رصيدة ونكسنا سؤالها أو جوابتي ولا لها وحي أي ربان إني لو غلط اليا أو تلسيت شيخنا فاضل سؤال شحكتو إذا نحكي كتبت قبر ولا لها كم إذا قالوا كان يعني مرمركو حرن وحلا ولا شان السلام كدب إذا وحلا شيخ عاد بكو سلام السلام كدب وحلا هاي شيخ تلوين كاغوان دقيستي runtii dhibaata ay haysataa oo aan moodayo mar walbo qalbigaygana murugo ku reebtay cid aan kala hadlana waan garan waaye laakiin ilaahay wuxuu ii saamaxay qolkan wanfo inaan sheekh Abu Dalxa aan bal taladan usoo gudbisto oo waxay diinta ka qabto uu ii sheego sheekhuna faadil haddaan su-aasha dhex galo walaashan waxay leedahay waxaan ahay zawjad la qabo oo hadda cunug yar dhashay oo cunugii koowaad waxay leedahay zawjkaygii markii intaanan dhalin ayuu isii digay wuxuu igu yiri markaa dhashid anigu ku sugi kari maayo 40 maalin aad yani ku jirtid dhalmada ku sugi kari maayo kadibna aniga cilmina malihi cilmigayga aad buu hooseeyaa arintaas waxaan ku yiri bal arintaas maan culimo iyo dad weydiino qolalka diintana iyo qolalkana wuu ii diiday masaajidada inaan aado meelaha goobaha khayrarka aad buu mar walba igala dagaalama marka waxay leedahay sheekhuna faadil arintii hadda markaan dhalay kadib arintii way dhacday zawjkaygii wuxuu igu qasbay anigoo arinta ka dhex bixin 40 ku jiro inuu jamaac igu sameeyo taasoo uu ku andacoonayo uu leeyahay zawjkaagan ahay haddaad idiidid malaa'igta ku lacnaadaysa marka wuxuu leedahay walaashan sheekh diinta maxay ka qabtaa dambi noocee ayaan galay anigii zawjkayga maxaa naguna talinaysa anigii zawjkayga maxaa tala ayaan baahanahay arintaas walwal weyn ayay igu ridda leedahay isoo duceyna reerkayga inuu barakeeyo leedahay falyatafadal mashkuura maajura shukran الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد إلهي كربضها كافيذو سيدا الحق أرادين يسو إلهي تبارك وتعالى هكوغو افتيميو عنق أبوه الريبان طلي إلهي عنق بارها كاقدقو مدآد كو انتفاعدنا أساق نفتي سأنفعنا ضل إيا الدين إيا الضمن وأديقنا إلهي أكاقدق تبارك وتعالى ninkaygaa horay iigu digay oo iigu yiri 40 beri ee haweenaydu ay ku jirto dhiig dhalmada anigu ma sugi karo horta waxaan doonayaa marka hore inaan ka bilaabo su'aashani qodobo dhowr ah ayaa u baahan in lagu dul istaagay horta 40 qasab ma aha haweenku inta badan 40 bay dhahaan laakiin gabadhu waxay dhiig uu kaga go'i karaa 40 ka yar horta taa weynay gabdhuhu in badan oo kamida ogaadaan oo ayna mas'aladu 40 uun ayna ku ekayn siday 40 u dhaafi karto 60 ba u gaari karto mararka qaarkood horta taa in la hubsaday marka u baahan tahay gabadhani ma 40 bay dhiig uu ay qabtay mise ka hor bay ka go'day waayo waxa ii muuqata ninkana waanu imaan doonaaye qoysku inay wax badan oo mawduuca ku saabsan inayna aad u aqoonin marka gabadha lafteeda waxaan u baahannahay inaanu ogaano 40kii ka hor caadadu dhiigu makaa go'ay mise kaama go'in horta masalada waa in lagu baraarugaa marka koowaad marka labaad waxaan u soo noqonayaa ninka gabadhana mar kale u soo noqon doonaaye ninka waxaan leeyahay horta gabadha ilaahay ogamaada baqin tabaaraka wa tacaala xuduudda ilaahayna waad ku xadgudubtay subxaanahu jalla wacala kelimadii lagugu xalaaleeyey waxay ahayd gabadha inaad xuduuddeeda u ilaaliso sharciga ah ee ilaahay ugu talagalay tabaaraka jalla wacala jahligu wuxuu keenay gabadhani jirkeeda intiisa kale waaba ku banaana isna'u kull shay illa nikah
haweenaydu markay dhiig qabto makaanka iyo maxalka ama wixii maxalkaa iyo u dhow unbaa laga fogaanayaa laakiin gabadha jirkeeda kale oo dhan waa uu kuu bannaanaa inaad ku tamatucdo shay daruuro oo keenayay ma jirin inaad ku xadgudubto sharciga ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa ka daran ayadoon dhalin baabad u sii goodiyaysaaba taana waa jahli bicaynihi wey arrintaasi laa'iq ma aha ragguna intayna guursanin bar horta ha barteen maxaa bannaan maxaan bannaanayn gabadhu markay caadada qabto gabadhu markay dhiig dhalmada qabto gabadhu meesha xubinka taranka meesha aan ahayna dhinaca gadaale intaa midna lagama isticmaali karo waayahan dambe waxaan maqlayaa wax aad looga yaqiiqsado oo aad iyo aad loo dhibsado oo ah yacni reer galbeedkii baa lagu ta'asuray markaasaa ninkii wuxuu leeyahay gabadhi markay caado qabto okay meesha caadada iska daaye meesha kale laga saxaroodaba maxaa ii diidaya waa arrin yaab badan oo qof yacni iimaan leh inuu ku kacaba aan habboonayn marka meesha gadaale oo laga saxaroodo iyo makaanka maxaa la yidhaahdaa iika xubinka taranka meesha caadada iyo dhiigga saddexdaa midna waa in layska ilaaliyaa xaaladdu markay intaa tahay ninka marka waxaan leeyahay horta ilaahay u soo noqo tabaaraka wa tacaala gabadhana marba ha ku samaynin haddii aad ayada jecesheedu run sheegayso haddii aad xuduudda ilaahay ilaalinayso tabaaraka wa tacaala taasi waa mas'alo ku saabsan qadiyadda midda kale waxaa ka daran daliil xumada ninka daliilku hadduu kugu qallocdo waa mushkilad daliilka sharciga ah waxaa la rabaa meesha loogu talagalay in la dhigo gabadha waxay leedahay ninka wuxuu leeyahay hadda isu diido malaa'igtaa ku lacnadi malaa'igtaa ku lacnadi waa goorma waa markay gabadhu nabad qabto waa markuu adduunku barwaaqo yahay oo weliba gabadhu dee ay awooddo caafimaad ahaan u awooddo shuruudaha ku xidhan laakiin meel lagaa xarimay ayaan u daliishanayaa xadiid kale haddii adiladii baad iska hor keentay adiladii baad madaxa iskugu dhufatay adigoo hawadaada iyo shahwadaada doonaya inaad raalli geliso mar kale waxaan leeyahay oo jimaacan dhacay ee iyadoo dhiig qabta aad ku samaysay waxaaba intaa la socotay daliil xumada kuu dheer oo aad gabadha aad ku cabsiinayso malaa'ig baa ku lacnadi arrintaasi ninka waxaan leeyahay masaajidada iyo meelaha khayrka lagu hayo intaad tagto bal horta culimmadana soo weydii arrintaa inaadan mar labaad u noqonina gabadha u ballankaan midda kale gabadha khayrka maxaad ugu diidi inanay haddaan ku dhihi lahaa adigu diinta bar adigii baaba diinta aasaasiyaadkeedii hoose ayaadan garanaynin oy kugu qalloocan tahay adigii marka wax ma beri kartid gabadhu marka inay cilmi soo barato oo ay diin soo barato oy qolalka khayrka ayadoon ku xadgudbaynin oo aan carruurteeda kaga mashquulaynin oo ninkeeda xaqiisa aan kaga mashquulaynin oo aan dayacaynin waxyaalo badan sida gabdhaha qaarkood hadda ay sameeyaan oo 24 saac ay qolka ku jirto sida iyadoo qolkuba nin u yahayba qolka ninkuuma aha wax walba wuxuu leeyahay nidaam iyo system buu leeyahay qolka inta loogu talagalay waqtigaaga aqabo haddaad maamul tahay inta kale dantaada raac haddaad kitaab ka raacanaysana saacadda kitaabka aad raacanaysa raaco dantaada raaco laakiin gabdhaha khalad waxay ka fahmeen oo reero badan inuu kagana dumay kuwa kalena uu qarka u saaran yahay khayr baa la wadaa intay maqleen ayay 24 saac dhegta ugu jiraa telefoonka khalad way arrintaa gabdhaha wayna arrintaa ka digtoonaadaan oyna xuquuqda iska horkeenin sida hadda uu ninkan iskaga horkeenayaba marka adigoo xuduudda ilaalinaya khayr badsashada gabadhay wax soo baro ninkana waxaan leeyahay ha u diidin biidnillaahi tabaaraka wa tacaala gabadha marna haddaan ku soo noqdo ha ku ateecin laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliqi ha ku ateecin marna
يعني محالي هذا الشيء حرام كو أطيعين إلا إنه كحوغة جوا مسألة أذيقة كابحسن وأود هذا مركا كابحسن خلاصة السؤال مركا وحاوي سيئو إلهي إذن كقرى للنغضو قيس ونرسلنا أظن غطان رب الرالي جلية تبارك وتعالى أو نيكا وحاليها الصبر أو دول قادو أو قبضة شركة هذه باكو بنانا كو تمتع أو إن يربا كو أغاها دي قبضو إنتي كقا بيسي أفرتن بإني لقارين بالغايا باي أو تمن بريكد بيعادو كذا قوده بل سك أو صبر أو دول قادو أو صون أو إسنينتا صون أو خميستا صون أو هدانا أود صون دي شهودادو آدن أودي كرين محالي لأن إنت أتشوكتو إن أنت أتشوكتو هدانا أودي كرين صون أو طرق ذا كلامركا استعمال إلهي وحان كبر تبارك وتعالى إنه قيس ونالسا إذن كدقو قيس كان الدرسي آن سؤاشا كقاضين وحاوي علمي هلا برتو أو قيسسك محاب بنانين قيس والبئر برتو وقضب لوغبه هي خاصة وحي قوشة كتعلقيو حالة ميقاب بنان قبضها إيا نيكا إنا إسكيغا تمتعان قبضها لغا تمتعو ميقاب بنانين حقين لغا استعمالي كرا حقين بنانين إن الله لا يستحيي من الحق لكن إلا برتو ووحا أغمهم سن الريركا شريتان كيسا قيبكا فالجرينت إلهنا قيبكا تبارك وتعالى هدين لبرواينا سيدا قالوا بالله نقمي قشنا بدن بالله استعمالي إلهي أن حفظه تبارك وتعالى والله أعلم